أسبوع صار دافني وحاشر وقصعدي هجامين لبدا دولة ديجان الصومالي دي عن فرتها مقالة الصواب كلن كاس أو أي initiation كيسا مقابلتي صار أي لهيد دولة ده بحي فدرالك سجودات كانوا حقوقي هاي إن goobaha aan xadka kala wadaagno deegaanka canfarta in dhibaatooyin badan ay ka soo jireen muddo badan oo dheer dhibaatooyinkaas waxay isugu jireen kuwa waqtiyo hore soo dhacayay oo dagaalo u dhaxeeyay xoolo dhaqatada labada dhinac oo dhulka iyo daaqi isku haysan jiray kadib waxaa jiray heshiisyo kala duwan oo xilliyo kala duwan la soo galay baa jirtay dagaaladii dhibaatooyinka iyo barakaca wuxuu bilowday xilliyadii ugu weynaa yani waxaan isleeyahay dagaaladii ugu weynaa iyo barakacii ugu weynaa magaalooyinka saddexda dadkii deganaa Soomaaliyeed laga soo barakaciyay xilliyadii isbedelku uu dhacay wixii ka dambeeyay marka halka hadan xoog faahfaahin ka bixiyo waxaa jirtay saddex magaalo oo hadda ka hor labada dawlad deegaan ay ku heshiiyeen iyadoo dawladda dhexe goobjoog u tahay in dhul ahaan ay ahaadaan deegaanka canfarta laakiin dadka degan ee Soomaaliyeed ay adeeg helahayaan oo iskooda isku maamulahayaan waxyaabihii horumarkan ay dawladda deegaanka canfarta ay u qabanayso heshiiskaas run ahaantii ilaa xilligii la gaaray iyo waqtigaas isaga dhibaatooyin badan baa ka soo jiray oo ma uusan ahayn heshiis sidii loo galay u hirgalay muusan ahayn dadkaasuna xuquuqihii ay lahaayeen ee la rabay dawladda deegaanka canfarta inay siiso ma aysan siinin isbedelkii markii uu dhacay kadib waxaa la ogsoon yahay isbedelka guud ahaan dalka ka dhacay wuxuu xambaarsanaa dabayl xorriyadeed buu xambaarsanaa oo qof walba oo wax tabahaya xuquuqihiisa inuu raadsan kara aragti baa jirtay marka dadkii halka deganaa qaybo kamid ah waxay sameeyeen in maartay ay cadeeyaan marka dhalashadooda inay deegaan Soomaali yihiin ay u baahan yihiin in heshiiskii dib loogu eego inay maartay meelaha qaarkood calanka deegaanka Soomaaliya laga taago iyay bilaabeen hawsha markay dhacday deegaanka canfarta waxaa looga baahnaa in wada hadal iyo maartay sidii heshiisyadii hore dib loogu noqon lahaa wixii ka khaldamay loo sixi lahaa in la galo laakiin sidaa ma aysan sameeynin waxay markaa go'aansadeen in dadkaas ay meesha ka barakaciyaan ka saaraan guud ahaantoodba dadkii sidii baa lagu soo barakaciyay dawladda dhexe ciidamo ka socdo meelaha qaarkood soo gaaray baa jiray dawladda deegaanka Soomaalidu markaa ciidamo rasmi ah waxay geysay ama ay qaadatay go'aankii golaha kaabineyga ee dadku in badan ay soo celceliyaan deegaanka Soomaalida baa heshiiska jabiya soo celiyaan go'aanka wuxuu ahaa kadib markii ay dadku barakaceen meelaha qaarkood garbacis markay ka barakaceen cadaytuna ay ka barakaceen bay dawladda deegaanka Soomaalidu markaas soo go'aansatay maadaama dadkaas dad Soomaaliyeed ay yihiin inay badbaadiso oo maartay ay ka badbaadiso cidda maartay gumaadaysa barakacinaysa isla maalinka iyo maanta inta u dhaxaysay heshiiskan ka hor dagaaladu way iska jireen xilliyo badan bay dawladda dhexe soo kala dhaxgalaysay ciidamo iimaanayeen heshiisyo la gaarahayay heshiisyadaas intooda badan kuwo miro dhalay oo dadkii guryahooda ku celiyay maysan ahayn dagaaladu wajiyo kala duwan bay soo mareen laakiin si guud ilaa hadda dadkii ka soo kacay goobahaas saddexdii magaalo kuma aysan guryo noqonin si nabada dawladda deegaanka Soomaaliduna faragelinta ciidan ay halka ka sameysay waxay ahayd mas'uuliyad saarayd inay fuliso oo dadka Soomaaliyeed dadka soo barakacay maadaama dad Soomaaliyeed uu yahay inay maaragtay difaacda xaq bay u lahayd runtii dagaalka inuu dhaco labada deegaanba maslaxo ugu ma jirin dad nooma ahayn run ahaantii labadan deegaanna wax badan oo ay wadaagaan baa jira waa daris oo ma kala go'ahayaan weligood daris bay ahaan doonaan hal dal ay ka wada tirsan yihiin iyo hal xisbi la talada hayay ka wada tirsan hogaamintoodu waa dad nololeed isku mid ah leh oo xoolo dhaqato ah weeyo aan ka maarmaynin inay guurguuraan oo isdhex galaan oo kolba meesha uu roob kaga da'ay si xoolaha u soo daajistaan waa dad islaam ah oo labaduba maaragtay bulsho dhaqan ahaan iyo maaragtay diin ahaan iyo dal ahaan isku nooc ah weeye marka dad ay munaasab ahayd in dagaalo noocaas ah ama maaragtay dilal noocaas oo kale iyo barakicin ay dhex marta maysan ahayn laakiin anagu waxaan isleenahay khaladaad ka jiray dhanka deegaanka canfartaba sabab u ahaa inay waxyaabaha badan ay dhacaan waxyaabahaas gud marka laga soo tago iyo dhibaatooyinka dhacay laga soo gudbo dhibaatooyinkii markii ay sii kululaadeen ay sii cuslaadeen dawladda dhexe marka kulan bay qabaqaabisay labada deegaan bay marka hore la kulmeen oo tiim laga soo diray dawladda dhexe u yimid wuxuu ku soo horeeyay jigjiga deegaanka Soomaalida
waxaa la soo dhigay maxaa xal noqon kara oo dagaalkan ku istaagi karo xal noqon kara qodobo la isla sheegay baa jiray qodobada waxaa kamid ahaa anagu deegaan Soomaali ahaan waxa aan doonayna waxa weeye dadkii magaalooyinka deganaa inay guryahoodii ku noolaadaan si xor ah nabad ugu noolaadaan yaa maamuli xuduudaha deegaanka xagay noqon waa waxyaabo laga wada hadli karo oo maaragtay xilliyaha laga wada hadli karo iyadoo la raacayo dastuurkii shuruucda dalka u yaala way laakiin dadku inay guryahooda nabad ugu noolaadaan anagu rabitaanka anagu waxa ugu weyn sidoo kale hogaamintii federaalka waxay la kulantay dowladdeegaanka Canfarta mas'uuliyiintiisii iyaguna kulli wixii ay u arkahayeen in dagaalkan uu xal u yahay bay u jeediyeen kadib labadii hogaamin deegaan baa yaa la isugu keenay dood baa la galay muddo 3 maalmood socotay waxa ka soo baxay marka heshiis aan isleenahay haddii sidiisa lagu fuliyo wuxuu xal u noqon karaa dhibaatadii faraha badneed ee soo socotay heshiiskaas si guud qodobo lix uu ka kooban yahay laakiin waxa ugu muhiimsan waa 3 qodob weey qodobka koowaad waxa weeye in xabadda la joojiyo dagaalka taasoo markaa ilaa maalintii heshiiska la galay maanta intuu dhaxaysa wax dagaal ah oo dhacay goobihii iyada ka dhacay ma uu jiro in dagaal la joojiyana waa waxa ugu horeysay heshiisiinta laga bilaabo weeye labada deegaanba waxaan isleeyahay hawshaas iyada ah ilaa maalinka heshiiska intuu dhaxaysa way uu fulay baan isleenahay qodobka kale muhiimka ah wuxuu ahaa in barakacayaashii ka soo barakacay magaalooyinkaas si bilaa shuruuda guryahooda loogu celiyo si bilaa shuruuda guryahoodii ay ugu noqdaan amnina ay ku helaan qodobka isaga marka fulintiisu wuxuu u baahan yahay qodobo hoosaadyo uu leeyahay oo u baahan in maaragtay la fuliyo dadkaas inay helaan damaanad amni inay guryahooda ku noqdaan in waxyaabaha humanitarianka laga caawin hayo haddii dib u dhis guryahoodii tahay iyo haddii maaragtay dib u dejin ay tahay loo sameeyo in dad yowgii colaadu ay ka dhaxaysay wada hadallo bulsho la furo oo marka ugu dambaysa yani conferences labada deegaanba waxgaradkooda iyo aqoon-yahankooda iyo culimadooda iyo bulshadooda maaragtay hawshaas iyada laga dhaadhiciyo oo ay fulintada qayb ka ahaadaan marka sidaas darteed qodobka labaad ee ugu muhiimsan waa in barakacayaashii bilaa shuruud lagu celiyo meelihii ka soo barakaceen way qodobka saddexaad isna waxa weeye in la sameeyo aag ka caagan dad hubaysan buffer zone in la sameeyo si ay dadkaasu aysan maaragtay area ay colaadu iyo dhibaatooyin ka jireen aysan xabad uga dhex in la sameeyo area ka caagan ciidamo hubaysan oo labada deegaana saddexda qodob baa ugu muhiimsan heshiiska la gaaray waxaa qodobo oo kale oo iyaguna ku hoos jira in labadan bulsho wax isku soo jiidahaya oo kulamo oo wada jira la sameeyo in hogaamintu wada shaqayn ay yeelato oo dhibaatooyinku marka ay dhacaan inay wada hadli karaan si degdeg ah ay u xallin karaan la sameeyo in mustaqbalka labada deegaan administration border loo sameeyo ama referendum dawladda la xal qaado iyadoo shuruucda wadanka la marahayo in maaragtay demarcation la sameeyo oo deegaanka Soomaalida meel uu maamulo kuwa Canfartana meel ay maamulaan hawshaas marka waxay u baahan doontaa waqti bay u baahan doontaa marka qodobada lagu heshiiyay ugu muhiimsan waa kuwaas weeye annaga ka deegaan Soomaali ahaan waxaan isleenahay qodobadaas haday fulaan labada shacab ee ka soo kala jeeda labada deegaan maslaxa ugu jirta waayo dhimasho badan barakac badan iyo hanti badan baa ku luntay dagaaladan sidaan soo sheegayna waa dad wax badan wadaaga oo hal dal wada degan hogaamintooda hal xisbi ay ka wada tirsan yihiin xoolo dhaqato wada oo daris oo marnaba inay aan kala maarmayna nabad ku wada noolaadaan hal diin haysto islaam weeye marka heshiiskaas inuu hirgalo anagu way naga go'an tahay marka deegaanka aan dariska ne walaalaha iga Canfar waxaan rajaynaynaa in iyaguna sidaas oo kale ay uga go'anaato qodobka anagu ugu muhiimsan waa dadkaas inay xurriyad iyo nabad ku noolaadaan way iyagoo guryahoodii jooga